السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta aad joogtaan oo markale ismiyasiin insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa xasaasiyadda maqaarka ee caruurta. Xaaladani waa mid hooyooyinka badana ay walaac badan ka muujiyaan markii ay caruurtooda ku arkaan ilmihii oo maqaarkiisa guduutay ama ilmihii oo isxoqaya. Haddaba waxyaabo badan ayaa keeni kara xasaasiyadda lagu arko maqaarka caruurta. Midda koowaad waxaa ka mid ah waxyaabaha kiciya xajiinta ee hawada ay wado sida boorka ama carrada dufanta xoolaha. Midda labaad, cuntada iyo cabitaanada qaar. Cuntada qaar ayaa caruurta ku sababta inay maqaarkooda ay xajiin ay dareemaan ama ay isxoqaan sida calaacalaha oo kale, sida qamadiga, malayga, ukunta iyo caanaha. Waa waxyaabo caruurta badanaa ku kiciya xajiinta ama caruurta badanaa lagu arko iyaga oo maqaarkooda isxoqayaan. Midda saddexaad, qaniinyada cayayaanka. Qaniinyada cayayaanka qaar waxay keeni kartaa in maqaarka ilmaha uu ka soo muuqdo astaamihii xasaasiyadda ama ilmihii isagoo isxoqaya ama cuncun badan isagoo oo dareemaya sida qaniinyada shinnida oo kale. Midda afaraad oo keeni karta xasaasiyadda ku dhacda maqaarka caruurta waxaa ka mid ah dawooyinka qaar sida dawada la dhaho penicillin oo kale ayaa sababi karta in iyadana sidoo kale maqaarka caruurta ay ku kiciso xasaasiyad. Walow dawadan penicillinta ay qof kasta ku kicin karta xasaasiyad, qof yar iyo qof weynba. Haddaba sidee looga ilaalin karaa caruurta in maqaarkooda laga ilaaliyo xasaasiyadda ama xajiinta? Guud ahaan ma jiraan wax haddii la sameeyo looga fogaan karo in caruurta xajiinta maqaarka ay ku dhacdo, laakiin waxaa jira waxyaabo yareyn kara khatarta in ay caruurta ay maqaarkooda xajiin ay ku dhacdo ama xasaasiyad ay ku dhacdo haddii waalidiinta ay ka feejignaadaan in badan ayna ka taxadaraan iyo weliba meelaha caruurta lagu xanaaneeyo sidoo kalena aada looga taxadaro. Haddaba talooyinka ugu habboon ee looga fogaan karo ama isaga ilaalin kala khatarta xasaasiyadda maqaarka caruurta waxaa ka mid ah in dharka caruurta lagu dhaqo waxyaabo aan xasaasiyad lahayn ama saabuuno ama oomooyin aan xasaasiyad markaas ilmaha aan ku kicinayn oo caadi ah in lagu dhaqo dharka, ama shaambooyinka loogu talagalay dharka in lagu dhaqo ama oomooyinka sidoo kale in markaasi lagu dhaqo. Muhiimadda waxa weeye in markaasi aan lagu dhaqin dharka caruurta shay markaasi ilmihii markuu dharkii xirto oo markaasi uu ku xasaasiyadoonayo ama uu xasaasiyad ka qaaday ama xajiin. Qodobka labaad, isticmaal shaambo ama walxaha jirka qoynaya iyo weliba saabuun aan cadar lahayn. Yacni ilmaha marka u qubeynaysid ama aad nadiifinaysid waa inaad isticmaashaa shaambo ama saabuun ama markaasi cadar ilmaha aan markaasi u keenaynin xajiin ama ilmaha uusan xajiin uusan ka qaadayn oo markaasi aysan noqon shaambo caraftiisa zaa'id ah ama udgoonkeeda zaa'id uu yahay iyo sidoo kale saabuun. dabcan waxaa jira saabuuno iyo shaambooyin loogu talagalay caruurta yaryarka in dharkooda lagu dhaqo, iyo waxaa jira sidoo kale shaambooyin loogu talagalay caruurta in markaasi loogu mayro. Cunuga markuu cuntada gaaro sida kale markuu cuntooyinka uu bilaabayo cunuga waxaa muhiim ah markaas inaad ku dadaashid cunada aad siinaysid markaasi inaysan noqonin cunno ilmaha ku kicin karta xasaasiyad ama xajiin, oo markasta aad ka taxadidid cunooyinka markaasi ilmaha uu qaadan karo iyo kuwa uusan qaadan karin. Joogteen nadaafada caruurta siiba caruurta aadka u yaryar si aad uga ilaaliso boorka iyo walxaha hawada la socda. Tusaale ahaan ilmaha markay aada u yaryar yihiin ma kala garan karaan boorka iyo waxyaabahan carrada oo kale, way iskaga ciyaarayaan, way ku galgalanayaan. Marka waxaa muhiim ah qofka waalidka ah ee guriga la joogo inuu mar walba ka taxadaro kana ilaaliyo ilmihii inay ciidaas ama boorkaas galaan. Iyo sidoo kale weliba waxyaabahan cayayaanka yaryarka oo guriga ku nool oo kale, waxyaabahan shinnida oo kale, baranbarada oo kale, waxyaabahaas cayayaanka yaryarka oo guryaha laga helo ama guryaha ku dhex dhasha in markaas ilmaha laga taxadiro oo ilmaha oo noqdo mid markasta dad waaweyn agtiisa ay joogaan oo wax kasta laga feejignaado. Ka fogey walxaha sababa xasaasiyadda sida boorka soo sheegnay, cunooyinka qaar iyo weliba cayayaanada. Tala guud, haddii cunugaagu aad ku aragto xasaasiyad ama isagoo isxoqaya ama xajiin haddii aad ku aragto, waa muhiim inaad la xiriirto markaasi dhakhtarka ugu dhow si markaasi xilli dhow wax looga qabto oo aysan xanuunkii uusan kusii
daahin si markaasi uu isagana daawo u helo. موضوعي maanta intaas uu kaga hadii aad ka faa'iideen la sii wadaag asxaabta hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe ka naga ilaawin hadii aad horey u joogteen like nagu caawi insha Allah waa mar kale iyo ismiyasiin oo idin la salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.